السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan Soomaaliya meel kasta dunida ka joogtaan. Maanta waxaan ka hadli doonaa qiso ka dhacday dalka Itoobiya gaar ahaan dhulka Soomaalida degto. Fadlan markii kuugu horeysay haddii ay tahay fadlan subscribe noo saar. Qisadani waxay ku socotaa qofka bilaadanka inaad kaga dhex odhan bulshada dhexdeeda kelmadaas oo qofkan saameyn u keeni doonta. labada qof ee qisadu ku socoto waxa la kala yiraahdaa Faarax iyo Aamina. Faarax wuxuu diginaa waxay jaar ahaayeen muddo fara badan. Aamina waxay ka ganacsan jirtay maandooriya la yiraahdo qaad bajaad dadku sida u yaqaanaan badankoodu. Faarax wuxuu macaamiil lahaa muddo fara badan. Aamina wuxuu ka qaadan jiray jaadka bilna uu ku siin jiray in muddo ku siin jiray oo laba qof oo macaamiil ah. maalin maalmaha kamid ah waxa dhacday Faarax inuu Faarax waxa dhacday isagoo suuqa joogay inay Aamina u imato ayna sheegato lacagtii ay ku lahayd ayna jiijiidato Faarax sumcadana halkii ay kaga disho. ninkii Faaraxaad buu niyad jabay. qof dhan oo jaartihiin macaamiilna la tahay sideedaba inaad moogtahay sumcaddii sharafta aad umada dhexdeeda ka dhaxmayso. Faarax go'aan buu qaatay wuxuu ku laabtay gurigiisii. marka ay gaadhay cabaar 6 maqribnimo Faarax waxa la deganaa hooyadii oo da ahayd iyo inantiisa yar. wuxuu ku yiri inanteedii ordoogiyoor waxaad u yeedhaa Aamina waxaan siinayaa maanta lacagtii jaadka. tiisiyeed way socotay waxay tagtay Aamina u tagtay. Aamina wuxuu ku yiri Aaminay aabo lacagtii buu ku siinayaa kaalay lacagta xisaabteedii sheeg buu ku dhahay. ayay ku dhahday tiireed gabadhii Aamina socotaa u imaatay Faarax. kursi buu dhigay. Aamina bal ii sheeg inta lacag la igu leeyahay. markaas ku tiri Faarax oo dil lacagtu iska badato intaasoo bilood bay maraysaa. waa sax ii sheeg oo inta bay ku tiri. kadib gurigu galay. ninkan wuxuu maagan yahay qorshe inaba aan caadi ahayn. wuxuu guriga kala soo baxay waxay moodeysay intaas inuu lacagtii ugu maqan yahay balse wuxuu guriga kala soo baxay madaraqad ama bahashan guriga lagu dhiso madaraqad baan u naqaanaa. iyadu way sii jeedaayo lacagtii bay sugaysaa. kadib wuxuu ku bilaabay inuu la dhaco madaraqadii markuu la dhacay ee ay naf ahaan uga kacay ayaa wuxuu sameeyay busto ku dudubay uu qaaday. kadib wuxuu geeyay dhulku madow. wuxuu geeyay hog yar oo agtiisa in cabaraan ka fogin hoggii buu ku riday. kadib bustii uu soo ceshaday. bustii markuu soo ceshaday oo guriga dhigtay ayaa waxa dhacday saacadu markay marayso 12 habeenimo ayaa safar meelaha ka yimid baa soo maray. kadib hoggii bay arkeen oo islaanta ku dhex jirto. way garteen islaantii alla wax bilay islaantii jaadka xagga ku iibin jirtay baqaadka xagga ku iibin jirtay. kadib dawladii bay u sheegeen dawladii bay gaarsiiyeen. sideedaba waxa dhacday tuulooyinka marka ay shay dhaco amba u dil dhaco waxa mamnuuc ah inuu qof inuu ka baxo tuulada amba qof inuu soo galo. bandooba lagu ridaa. tuuladii bandooba maalin habeennimadii sidii loogu riday waxa la baara waxa dhacday ninkan Faarax dawladdan buu la doondoonaya u daba socdaa. markaasuu leeyahay alla gabadh fiican bay ahayd alla gabadh wanaagsan bay ahayd. kadib sidii loo raadinayay salaadii subax markay ahayd la waayay guri kasta laga soo dayay dambiilihii ayaa waxa dhacday salaadii subax markay tahay ayaa gurigiisii kaliya ayaa soo hadhay hayjadii. gurigiisii baa lagu yiri Faarax gurigaaga noo baadh. markaasuu gurigaaga maxaa anigaaba doondoonay anigaaba nagula jiro maxay ahayd baaritaan ku jiray maanigaad ka shakadeen inoo baadh baa lagu yiri. waayahay buu Faarax guriga uu galay. guriga wuxuu soo qaatay doqonnimadiisa. waxa meesha dhex yaala guriga dhex yaala bustii iyo dhigle. bustii baa la soo saaray. bustii markii la soo saaray waa dhigle lagu arkay. kadib ninkii sidii ku fashilmay su'aasha la weydiiyay markaa waxay tahay inteeda kale Itoobiya sharciga u yaalo wuxuu yahay qofka marka aad disho ama nafta aad ka qaado qof yoomida la soo joojinaya oo la soo fariisinaya wixii aad ku dhufatay haddaad baastoolad ku dhufatay baastooladii baad qabsanaysaa
sidaad ugu dhufatay baad ayaad sameynaysaa lagu sawiray adoo ku dhufanay kadib dariiqadii ayaa loo soo dhiibay la dhac baa lagu yiri iyadoo miida kadib uu la dhacay oo lagu sawiray sidii sharcigii loogu fududeeyay maxkamadii oo lagu sawiro kadib waxa la weydiiyay maxaad u dishay gabadhan jaar baad haydeen intaas sanaad jaar haydeen kadib wuxuu yiri kelmad baan u dilay kelmadaasina wax kale ma ahayn anigoo bulshada dhex jooga bay kelmadaada igu tiray waxay ugu dhex aabeysay kelmadda aan qaadan karo waa kelmadaas kulley maanta qisadeenu halkaas ay nagu eg tahay kulley kelmadda aad qof kaga dhex tiraahdo bulshada dhexdeedana aad bay saameynteeda u leedahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.